dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday gelitaanka ciidamada Kenya ay u galeen koonfurta gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintaasna waxa ay noo soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black. dibadbaxyadani oo ay ka qayb qaadanayeen kumanaandada oo ka dhacay deegaanka calamada ee gobolka Shabeellaha Hoose kana mid ah dibadbaxyo dhowr oo iyagu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan Galgaduud, Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa looga soo horjeeday soo galitaanka ciidamada Kenya ee qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. isku soo baxyadani looga soo horjeeday fargelinta dawladda Kenya ee ciidda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyadoona dadweynaha isku soo baxay ay hadal u jeedinayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ay ka dhex muuqdeen Sheekh Muxtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo Sheekh Xasan Daahir Aways. dadweynaha ayaa iyagu waxa ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhanaa dawladda Kenya oo ay ku cambaaraynayaan dhibaatooyin ay sheegeen inay ka geysteen gudaha Soomaaliya. Sheekh Muxtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka hadlay dibadbaxani ka dhacay deegaanka calamada ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ugu hanjabay dawladda Kenya in dhibaato waliba ay ka geystaan gudaha Soomaaliya ee iyana ugu geysan doonaan gudaha dalka Kenya. sheegteen qaad xirtaan oo qashqashaadaan annagu dekada waxaan ka heli jirnay idinka soo qaadanaynaa si aan maryahay bismillaahi taala waxaan leeyahay mujaahidiintu haddii dekada la qashqashaado Kenya idin dekada dejiyadeeda aada oo martideeda aada oo meelaha ay hantidu u taalo dhan aada oo ka soo qaata iyagu waxaa dekada ka heli jirteen Kenya ka helaysaa bismillaahi taala marka waxaan leeyahay Kenyaatigu وإذن دينا بإذن الله تعالى وحكروا مجروا سيدا شيخ عبد الرحيم الشاقي شيخ عبد القادر الشاقي هدينا داية ولا صوتا فيه وإذن دينا بإذن الله تعالى ولا لها مجاهدين دولتها كي يدرس كلا وحن لا يهمانتين إن شاء الله تعالى صوبحا ماشا غنيمة تعالى خير بدن بايالله قالوا لقات كاري يقول تعالى بإذن الله تعالى يقرأ وحن لا يكسوا بمدى دقالنا مصوبحا ولا لها غير كيا هذا الشهر الصومالي إذا تقبرتي أما ماليه كلام معسكرات يدي يدونك مجاهدين أيضا عيان كل شيء الصامية غير كوكسو تقبرتي وحن لا يوم جاء دوركم وقت جنيبا الجاري ديار جرور كليه وحن قلت لنا بمبير الله طورئي إلي كدا يعني عدوغا قنية علص أما جب علص وقصه بإذن الله تعالى. sidoo kale Sheekh Xasan Daahir Aways oo kamid ah mas'uuliyiinta xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa isaguna ku dhaliilay madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee garabka siinaya ciidamada Kenya in lagu awrkacsanayo oo kaliya balse aan waxba loo qaban doonin. waxaan ka hadlayaa nimanka la soo adeegsan hayo oo shaarkooda lagu soo gabanay Axmed Madoobe waxaan leenahay waxaa loo socdaa Kenya intaas uma jeedo inay shabaab la dirirto uma jeedo umana diyaar garoobin waxay u diyaar garowday dalkaas la yiraahdo jubbooyinka inay dalkeeda ku darsato ayay rabtaa sidii ninkii la oran jiray Andalus laga qabsaday Abu Abdallah la oran jiray oo markii laga qabsaday la yiri adeer ordiska tag marka saasaa lagu wadaa sidii Abu Abdallah loo yeelay oo markaas intuu ooyay markuu baardoonta fuulahayay وسديني ما ينورس كتقبل مركز هويديس بقى وحي كتيري مركز سيدي رج ودقة لم يويدي سيدي الدمر كي وقوي بيتي سيدي الدمر كي وقوي بيتي إلا قف كمارة تبهل كي بحوها لينك رجع وحلوية قانين وعيرن كيسار وسيدي عدو ويسك الدفاع أحمد مدوبه بسيدة الغوة وسيدي عبد الله والله كينيا إليس الأدية وضن كو قبنينين أيها قبصنا وانا كو قبصنا وانا سيدي عبد الله يوسف هذا كور لوغلي ومركي بلنبل أي قبصده أي ماجين جبهدي الأورنجي الأسس دي إني عالم كودي كتاكتان إثيوبيا وكدي دي عالم كودي كتاكين إلى هذا مركي بلنبل جوكتي وحويان بهالكان اللي يراهد الثريها وحكوسو صار يين إثيوبيا جوكتي وأجاس مارتي ودن كودا كدر صدق وركاس مركا وين لو قادوي
warkaas in la ogaado weeye axmed madoobe taladu way kaa dhuntay isdaba qabo warka loo socdaa kaas waaye wallaan lagu qabanay Ethiopia Kenya waxay rabtaa awalba wadanka in la qaybiyo marka hore kadibna la qaybsado ayaa lagu talagalay marka qaybtii Kenya ay rabtaa inay kugu qabsato caqli laawe dadka oo iyagu laga dheehanayay caro aad u xoogan ayaa iyagu waxa ay ku qaylinayeen erayo ka dhana ciidanka Kenya ee soo galay qaybo kamid ah dalka Soomaaliya kumanaankan dibadbaxayaasha ah oo iyagu aad uga soo horjeeda soo galitaanka ciidamada dalka Kenya ee soo galeen gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale ay ka dhaceen qaybo fara badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel deegaanka calamada gobolka Shabeellaha Hoose